kubadda cagtu waa meesha kulmisa bulshada qaybaheeda kala duwan waa xarunta barbaarisa tayada xirfadlaha soo nasaarta ruux dabiici ah waayihii ugu dambeeyay dunidu waxay ka noqotay mid ka mid ah shaqooyinka lagu tartamo aadkan loo baaday goobo dhaqaalaha tirada badan laga helo laakiin qaaradda Afrika iyo Soomaaliya oo aynu ku noolnahay wali waxa ay ka taagan tahay boos aan halka gaarsiisneen oo ah kubadda cagtu inay tahay meel la iskugu abaal sheegto meel qabiil loo adeegsado dadkan la kala jeclaado daqiiqada ka hor baraha bulshada waxa si aad loogu soo baahiyay sabrada ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed oo qaadanaya waqtigoodii nasiinada waxay qaadanayeen waqti kooban kadib tababar ay sameeyeen ciyaartoyda Ocean Stars iyaga oo cunayay cuntooyinkii loogu talagalay balse koox dhinaca xiriirka aan moodayay inay ka socdaan ayaa baraha bulshada ku soo baahiyay sabradaasi iyaga oo ku soo qoraya ciyaartoyda Soomaaliyeed oo si wanaagsan loo maamusay abaal fiican loo geystay iyo sidoo kale ciyaartoyda Soomaaliyeed oo martiqaad wanaagsan loo sameeyay marka laga tago in halkan ay tahay wax lagu wada qabanayo shaqo haddana ciyaartoydu waxay qaadanayaan waqtigoodii iyo kaalintii ay ku lahaayeen xulkooda Soomaaliyeed iyo sidii ay u difaaci lahaayeen guul loo gaarsiin lahaayeen sidaas la mid ah xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo ruux walba Soomaaliyeed isaguna waxa waajib ku ah inuu qaato kaalintiisa ku aadan sidii uu horumarin lahaa ciyaaraha Soomaaliya dadkaasi rajaynaya guushiina gaarana uu garab istaagi lahaa laakiin in loo dhigo ciyaartoyda Soomaaliyeed sidii in wax aysan iyaga mudneen la siiyay ma ahan wax qurxoon ayay leeyihiin dadka ciyaaraha Soomaaliya sida aadka ah ugu dhex jira ma wanaagsaneyn xilligan oo kale in la soo bandhigo sabrada cayanka oo kala ah maadaama aysan madaxda xiriirka Soomaaliyeed ku dhiilan karin in ay maalin walba soo bandhigaan xogta ugu dambeysay ee ciyaartoyda Soomaaliyeed inta ay Tansaaniya ku sugan yihiin waa soo dhaweyn oo kaliya midda maanta ayuu sidoo kale yiri mid ka mid ah saaxiibada aadka ugu xiran xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta wixii maanta dhacay waxay u muuqataa sidoo kale arintan in ay tahay mid ay ugu talagalayaan madaxda dhawaangalka ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta in ay qanciyaan bulshada Soomaaliyeed oo si aad ah uga siiniyo jabaysa nidaamkooda maamul ee ka jira dalka Soomaaliya markii tafaraaruqa iyo musuqmaasuqa ka jira uu aad u tiro batay dhinaca kale ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed ee isku diyaarinaya kulanka Iswateeniya waxay sameeyeen maanta diyaar garowgoodii ugu horeeyay waxaana xarunta tababarka ciyaartoyda qaranka ka soo dhex muuqday maanta ciyaartoy tiro badan kuwa oo isku diyaarinaya kulanka inay ciyaaraan inkastoo ilaa hadda aan la soo bandhigin liiska rasmiga ee ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed 30 ciyaaryahan oo si ku meel gaar liiskooda loo soo bandhigayna ay ku sugan yihiin Tansaaniya haddana diyaar garowgii maanta waxa uu dhabada u sii xaari karaya ciyaartoydan natiijada guuleed ee laga sugan karayo markii ay la ciyaarayaan Iswateeniya kulanka koowaad ee reebka ciyaaraha Afrika ee 2023